السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا u dhaqaaleysan kartaa daatada mobilka kugu jirta ama ku shubatay intee doontaba ha leekaatee. Tusaale ahaan oo kale 1GB hadaa ku shubatid sida aan aragno waxa weeye in isla markii ay ka dhamaanayso adigoo ku isticmaalay social media wax yar oo kooban oo ku jiray khadka isla markii waxa arkaysaa daatadii oo ka gooday ama wax laga yaabaa megabyte inaad ku shubatay 5 senti 50 senti waxaad rabtid marka aad awoodid oo kale inaad ku shubato waxa dhacday inay isla markii ka dhamaato. marka halkan aan isla arkayna step by step ila soco sida u dhaqaaleysatid ama aad waxa weeye u xafidid ama u kaysatid ama u dhaqaaleysatid mobile data aad ku shubatay waxaad tagaysaa wax la yiraahdo setting marka aad ila soco waxaad ka sii tagaysaa wax la yiraahdo mobile network ama connection hadba telefonka ay isticmaalayso noocu yahay ani waxaan isticmaalay Android waxaan tagayaa wax la yiraahdo setting markaan tago waxaan ka istagdiyaa meeshan ay ku qoran tahay connection markaan ku dhufto waxaan raadinayaa wax la yiraahdo meel ku qoran tahay data usage ama data usage hadba saa u taqaan waan ku dhufanayaa markaan ku dhufto hoos baan aadayaa hadda waxaad aragtaan waxa weeye inuu ii shaqeynayo wax la yiraahdo maxay ahayd daatadii caadiga ahayd ugu shubnay inaan isticmaalayo halkan waxa ku qoran waxa weeye sim card 1 ama sim 1 iyo sim 2 telefonkaaga hadduu hal kaar leeyahay sim 1 ama hadduu laba kaar leeyahay sim 2 labadaba hadii kugu wada jiraan ku shaqeynaa labadaba ugu jiraan mobile kan ku isticmaalaya dooranaysaa ama mobile ka ku isticmaalaysa baad dooranaysaa khadka ama daatada aan mobile kan ku isticmaalay waa sim 1 saan ku dhufanayaa waxaan ka sii dooranayaa mobile data usage oo sim 1 ah waan ku dhuftay markaan ku dhufto halkaas ba waxaan ka arkayaa waxa weeye applicationada isticmaalaya daatada isla markii aan ku shubto ayadoo aswaan ila socodsiin halkaas aad u jeedaan waxa weeye halkaas aad u jeedaan Facebook oo kale Facebook automatically markaan data ku shubto automatically asaga isticmaalaya horu ka shaqeeyis ka bilaabanaya aniga laga yaabaa inaan hal mar galay ama laba mar galay buu asaga mar walba uu is update gareynaya aan u dirin buu hoos ama background ku iska update gareynaya waa sidoo kale TikTok sidoo kale YouTube meelaha buluuga saaran yahay oo dhan waa meelaha isticmaalaya waxa weeye daatada aan permission siin Facebook oo kale aan ku dhufanaya halkan waxa ku qoran waxa u jeedaan waxa ku qoran waa ka foreground background soo jeedaan oo isticmaalay 66 megabyte daatada markii ugu dambeysay aan ku shubtay marka mar rabo waxaan rabaa Facebook markaan aan dhex galo kaliya inuu waxa weeye ii shaqeeyo maraba markii aan ka baxo aan iska xiro laakiin daatada aan waxyaalo kale u isticmaalay inuu si isticmaalo daatadeeda marabo marka halka meesha allow background use data usage waan ka saarayaa waan ka xirayaa waa tagayaa sidoo kale waxaan ku laabanayaa application-ka ii soo labeeya oo waxa weeye isticmaala TikTok waad aragtaa markaan ku dhufto halkan waxaad ku aragtaa background-ka waan ka xirayaa asna waan ka tagayaa waxaan tagayaa wax la yiraahdo maxay ahayd application-ada kale YouTube ko kale saa u jeedaan waxa weeye asna sidoo kale uu furanta ka xirayaa background-kan ka xirayaa waa tagayaa sidoo kale waxaan raadinayaa application kale oo aan isticmaalo waxaan tagayaa wax la yiraahdo maxay waxyaalaha kale su'aal ahaan ludaho kale asaga hore aan uga soo xiray waxaan bedelayaa marka taariikhda halkan waxa ku qoran waxa weeye 1 Maarso ilaa 21 intaan isticmaalay Maarsna dee wali ma dhamaan waxa lagu jiraa markaan aan duubayo videogan 16keedii waxaan tagayaa wax la yiraahdo January oo kale inaan fiiriyo January markaan tago waxaan eegayaa waxa weeye waxyaalaha aan isticmaalay oo beeraha kale horaan uga xiray okay waan ka soconayaa application kale aan baarayaa applicationada kale aan baarayaa waan raadinayaa salaan oo kale kan oo kale waan ka xiray kuwa kale oo aan ka xirin baan raadinayaa oo waxa weeye bilaa amar ku isticmaala daatada waxaan tagayaa wax la yiraahdo February aan tagayaa sidoo kale ama February halba saa u taqaanid waxaan tagayaa wax la yiraahdo maxay light-ko kale hore uga soo xiray waxaan tagayaa wax la yiraahdo maxay waxaan kaloo isticmaalay hotspot-ka asaga kama xiri kartid maadaama aad telefoonkaaga uga xiriirinaysay laptop ama telefoon qof kale marka asoo mar walba saas ku ahaanaya waxaan tagayaa wax la yiraahdo waan baarayaa kuwa kale outlook oo kale waa ka xirayaa waxaan tagayaa wax la yiraahdo maxay kuwa hoos background ka isticmaala khadka bilaa idankeyga oo isla markii dhameynaya khadkiga raadinaya waa ka sidoo kale halkan waan ka laabanayaa marka inta xaliyo waxaan tagayaa wax la VPI data usage
applicationada macnaha wireless meel ah markaan tago aan ku xirta ama wireless markaan daarto kale applicationada ugu badan oo aan isticmaalo for example oo kale waxaan tegayaa wax la yiraahdo February ilaa iyo intaas isla intii aan hadda soo aragnay way inta ugu badan oo aan isticmaalay 3 bilood la soo dhaafay marka saa darteed baa wuxuu kuu suurtagelaysaa hadba applicationka marka dhex gashid ina applicationka aad isticmaashid oo fariimihiisii ku soo dhacaano waxa weey update-ka heshid laakiin marka ka baxdid waxa update ku siin mayo daatadaadii way ku dhaqaalowaysaa WhatsApp-kaagii waxyaalihii koobnaa oo muhiimka ah unbaa dhex galaysaa oo kuu soo daadanay fariimahoodii inta kale laakiin way ka xirmayaan marka sida adiga aad rabto u isticmaal applicationada isleedahay marka waa isticmaalaysaa oo isticmaalka uu badan yahay marka meesha soo dhex gashay aad arki doono kuwaas aad wax ku sameynaysaa waa dhex galaysaa waa xiraysaa waxaan u maleynayaa inuu videogan ku anfacay fadlan subscribe comment like share aad baa u mahadsantahay